aan kula hadlayo dagaal culus ayaa waxa uu ka socdaa bariga magaalada Gaalkacyo. ciidanka daraawiishta Puntland ee ka amar qaatay Siciid Deni ayaa xilliga aroortii hore saakay waxa ay weerar ku ekeeyeen xerada ay degan yihiin ciidanka BSF-ta ee ku yaala bariga magaalada Gaalkacyo. waxay u adeegsanayaan dagaalkan oo daraawiishta maamulka Puntland weerarkii ay soo qaadeen madaafiic kala duwan sida muuqaalada qaar aad arki kartaan. waxaa markaas wax weeyaan gubanaya oo madaafiicdu ay ku soo dhacayaan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo. waliba xilligan aan kula hadlayo waxaa dhaawacay meedadka laga gurayaa qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo oo sidaad arki kartaan xilligan xaalad aan caadi ahayn ay ka taagan tahay. daraawiishta maamulka Puntland ee Siciid Deni ka amar qaata weerar ay saakay ku ekeeyeen ilaa imikana dagaal culus oo aan waxba la isku reeban ayaa laga maqlayaa bariga magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo ay xero weyn ku leeyihiin ciidanka BSF-ta ee ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya. weli ilaa xilligan aan kula hadlayo dagaalku waa uu socdaa. dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaraha ka dhashay intaba lama koobi karo maadaama dagaalku yahay mid qaraar, hubka noocyadiisa culus iyo madaafiic culusna ay laisku adeegsanayo. wax allaalihii wixii ka soo kordha xiisada xilligan ka socota Gaalkacyo iyo dagaalkan lagu qaaday ciidanka BSF-ta ee bariga markaasi Gaalkacyo degan oo xero ku leh waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe. like saar muuqaalka oo sii sheergaree si uu meel fog u gaaro daawade. mala dhiban tahay oo ma isku aragtaa qandho joogto ah, madax xanuun, labalaba zaa'id ah, bogo iyo beerka oo ku olola, tabardarro zaa'id ah, xubnaha oo ku xanuuna ama socodka oo ku dhiba, indhuhu ma ku madoobaadaan. kaalay waxaan ku hayaa dhakhtarkaagii isbitaalka Fiqi hospital waxaa kugu diyaaro 24 saac xigan kugu ah dhakhtar Fiqi oo in ka badan 30 sano taqasus leh. caafimaadku waa qaali iyo hadda gaar isbitaalka Fiqi oo kumaan eeb uu ku caafiyay ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda.